السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقلت oo maanta ku wada hambalyadii qarniga ama hambalyadii ugu weyneed aad maqasho inta Jarmalka joogtay waxa jira walaalo badan oo Soomaaliyeed oo Jarmalka jooga negative badankooda haystaan ama diidmo duldu tarxiil waxyaalahaas u dhagsan yihiin laakiin maanta laga bilaabo ama sanadkan 2022 hambalyadaadi waatan waxaad xaq u yeelatay in lagu siiyo Ausweis ama sharci cusub sharciga cusub oo magaciisa la Chancen Aufenthaltsrecht Chancen Aufenthaltsrecht kaas oo la mid ah sharciga ama Ausweiska 25A 25B ama ba ama aba okay haddaba shuruudaha lagaga baahan yahay tahay shuruudaha koow qofku inuu joogay Jarmalka 5 sano 5 sano ee Jarmalka joogtay talabaad inaanu qofku wax dambi aanu gelin dad badan waxa jira israada negative bias ama dulduba ku yaala dambiga gala shufa ku jira fitraaga badan qaatay raantii taasi dhib bay ku keenaysaa hadaa xataa negative haysato ma wanaagsan inaad waxyaalaha samayso okay haddii ku socono wax kale lagaga baahan yahay inaad noloshaada aad ka faala qaatay haddii aad family tahay 70% soddon caawimaad meelo yar ka soo galo muhiim ah laakiin qodobka 70% inaad faala qaatay نقطة كلا بونتك كلا قف كل سنة واحد تكريسيون كورس لا يرادو أمينو هايست قفكو شهادوي كل قطع قف كادو شو لابشلو استماش على كون أكسن هذا هايست أصل لابشلو استتارك بس يقول أكسن بلا ما يهري كلامه تكلا قف كإنه هايستو واحد عدين إسا وحدي هاي على شيء دي سومالي ويا أنيقا سومالي قف كانوا سومالي سؤالانو كلا سومالي ما حد يعني inaad haysato wax baasa Somali passport ama inaad haysato warqad safaaradda laga soo qaato Soomaalimada cadeynaysa ama inaad haysato warqad dhalasho oo inaad yani meesha ku dhalatay adu meesha interview ku martay muhiimadu inay cadeynayso warqadda dhalashadii marka inta haysato ruuxantii u baahan xataa lawyer baafka ama Ausland bihoodiga ay antaraag sameynaysa ama iyaga ayaa kula soo hadlaya hadii ay kula soo hadlayaan ama adigu ay warqad ku soo dirwaan labadaba waad la hadlaysaa laakiin waxaad lawyer u qabsanaysaa ma lawyerku sidiisu wuxuu sameeyaa dambiyada iyo waxyaalaha kale ee sharciyada qofka lagu dhagay waxyaalahaas ay dad laakiin tani waa mid dawladda Jarmalka u qoodayso qof kasta oo Jarmalka jooga oo bilaa sharciya kaasoo integration sameeyay qofkaasoo bixiya cashuur fasiir shuquumidiisa iska baxsha si adirteed uu xaq u leeyahay inuu haysto sharci oo la mid qosa dad kale la wadaag video qof kasta walaalka aad garanayso bilaa sharciya oo sheeg inuu hambaliyo sanadkan ay sharci u iman doono aad baan idin salaamayaa horta marka hore soo duceeya marka labaad waxaan rabaa inaan idin sheego dadka duldunka haysta paragraafka 60 يعني duldunku lambaru kala leeyahay sida Aufenthaltsku uu leeyahay lambaro dadka haysta duldunka lambar 60ka waxaan ku wada hambaliyo hadda kadib hadii aad shuruudahan ka soo baxday waxa lagu ogolaan doonaa iqaamada 19 da iyo 25 bil labada Ausweis mid kamida ayaa lagu ogolaaday hambali meel ku qoran hadaba shuruudaha hadda soo buuxiso weeyaan ko hadii aad soo gashay ka hor koodii bishii 2018 ka hor hadda soo gashay ko dadka soo galay ka hor 2018 bishii ka hor ayaa sharcigan yani qaban doona ama Ausweisada xaq u leh okay maxaa laga rabaa ko waxa laga rabaa in aad horta marka ugu horeysa in aad ahayd qof shaqo la ogolaaday oo shaqeynayay ko inaad haysato shahaadada luqadda ugu yaraan aad inaad haysato marka labaad in uu qofku haysto haddaba inaad haysato wax passport Soomaali inaad haysato waa muhiim qodobka kale inaad dambi wadanka gelin oo bilaa dambi tahay ugu yaraan 18 bilood inaad shaqeysay 18 bilood inaad shaqeysay waxa ka dhigantay inaad 18 bilood aad bixisay wixii fasiir shaqo oo laga rabay sidii karaankaas oo kale rent fasiir shaqo kanaad baa waa koow waana muhiim takalo ugu yaraan 18 bilood ka badan hadda shaqeysana de lama heli karo taas way ka fiican tahay qofku inuu haysto waqti xaadirkan fitraag shaqo fitraagaas oo fall side qofka hadii uu family yahay tile side waa macquul laakiin qofka haduu single yahay inuu fitraag fall side haysto oo isbuuc u shaqeeyo ugu yaraan 40 saacadood taas way ka dhigantay waa fall side
kow inuu haysto kow qofka inuu noloshiisa uu ku filan yahay qofka inuu noloshiisa ku filan yahay waxay ka dhigan tahay tusaale ahaan in caawimaada job centerka runtii taasaa ugu dhibada laakiin qofka hadduu qaado kinda sushlag iyo phone geldi taas dhib ma laha laakiin muhiimaddu waxa weeye qofku inaanu job center ama social caafimaadka qaadan oo yacni isku filan yahay waa muhiim runtii sharcigan wuxuu dhaqan geli doonaa 12 ilaa iyo 12 bisha 31 December 2023 sanadka bacda ay sharcigan sida caadiga ah loogu dhaqmi doonaa laakiin imika process ku jiro laakiin haddaad tahay qof walaal intaas shuruudo soo bixiyay runtii sharcigaas aad xaq u leedahay haddaad lawyer haysatana ma sha Allah la wadaag haddii kalena adigu sida caadiga ah oo islaanta bihoodiga ama meelaha dadka laga caawiyo bisheeda ku gudbiyaan la wadaag qof kasta leedahay muhiim buu yahay aad ma ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi